السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaynu soo qaadanaynaa waa qisooyin keenii taxana aynoo ahaan jiray ayaynu qaybo ka mida soo qaadanaynaa. maanta sheekadaynu soo qaadanaynaa waxaa la yidhaahdaa adigu idhaaftaye balaayatiinka andhowro. qisadani waxay ku saabsan tahay wiil magan la yidhaa, waana qiso jacayla oo ka dhacday deegaanka galooley ee gabiley. magan wuxuu ahaa wiil isagoo 5 jira ay hooyadii dhimatay, mana uu dhandhamin macaanka ay hooyadu leedahay iyo kaalinta ay nolosha kaga jirto. mana sifan karo hooyadu waxay tahay, oo isagoo 5 jira ayay ka dhimatay. waa xilliga uu ilmuhuna hadi goor nugul yahay ee u baahan yahay hooyada, oo haddii hooyada ku waayo isagoo yar 5 jir 4 jir, waxa weeyaan dhibaatada adduun ee ka dambaysa hadhow waxay wiiqdaa waayihiisa koritaan, dhisitaankiisa qofnimo iyo tarbiyadiisa oo lunta. magan waxaa dhalay cumar dhuxulaa la odhan jiray aabihii. cumar dhuxulle wax adduunyo ah waxa uu leeyahay beer haruudh, oo beer haruudhaasi waa beer baxda un xilliga roobku do-o oo aan waxba laga beeran karin xilliga jiilaalka ah, oo aan lahayn waraab, waxaa la yidhaha irrigationka. kolkaa beer hadhuudha iyo labada dameer wuu ku dhuxuleeyaa oo magaalada ayuu kolkaa waa dhuxulaysato. cumar dhuxulle wuxuu ahaa oday dadaal badan, oo inankiisa magan 5 jirkiisii ayuu malcaamad qur-aanka ku daray. malcaamad qur-aankii markii uu si fiican qur-aankii uu u dhameeyey jiscama, haddana wuxuu ku daray dugsigii hoose oo fasalkii koowaad wuu dhamaysto. wuxuu galay kolkaa ilaa kii afraad kii dhexo fasalka 8aada wuxuu uga gudbay kolkaa dugsiga sare ee tima cadde galaaska koowaad ee kolkaa form 1. magan kolkaa waxaa form 1 markii uu galay waxa uu bartaa kala kulmay dhacdo aad uga yaabisay. waayo 2 gabdhood oo walaalaa waa ayaan iyo ismaan baa la odhan jiray, waana mataano, ayaa labaduba jeclaadeen. labada ma kala garatid muuqaal ahaan, jir ahaan, hadal ahaan, socod ahaan. waa laba kaad aragtaaba waa kii kale, taad aragtaaba waa tii kale. waxaad ku kala saari kartaa way yar tahay. labaduba way wada jeclaadeen. weliba waxaa aada u jecel oo ilaa si xaddaafa u jeclaatay mataanta labada. ta soo horeysaa la yidhaahdaa amba mataanka ha noqdo, qofka soo horeeyaa la yidhaahdaa waa weyn, wuu weyn yahay. kolkaa ismahaan ayaa aada u jecel, oo inanta kalena waa la mid. waayahay magan mid jacayl isaga dee uu soo hami jacayl u garaba maaha, oo waayo duruufaha ku xeersan waa duruufo adag. ismahaan iyo ayaan waxaa dhalay tijaar
xaaji mooga la yidhaahdo. hadi goor dadka xaaji mooga loo bixiyaana waa qofka yaraan ay aabihii kaga dhimatay. kolkaa xaaji moogaa dhalay oo tijaar dee caddaaday oo ballaadhay ah. labadiisa hablood amba labada hablood ee uu dhalay waxaa kolkaa u iibiyey gaarin baashaantiisa ayaa geeya dugsiga iyo dirowal khaasa oo maashaantiis benis waynu garanaa. dhinaca kale magan wuxuu ka soo lugeeyaa galooley iyo timcadde masaafada isku jiraan waa la garan karaa, oo masaafad aada u dheer. waa in hiirta waaga oo kolkaa cadkacdaa si aad u gaadhid. ma jirto hooyo qureec u diyaarisa oo nasiibba umuu helin dee hooyo dee wax u diyaarisa. waa dhinaca labaade aabihii dee waxa weeyaan waa aabuhu waa qaali, laakiin ma geli karo hadi goor abaabulka iyo kaalinta hooyadu kaga jirto nolosha ilmaheeda. kolkaa hadhaagii xalay hadduu shaah yari uga soo hadhay iyo rooti yaro ay haysteen, intaasuu dee saddexda dhadhaar sorry saddexda dhadhaar saartaa oo kili yaro kolkaa gaboobay oo madoobaaday iyo koob yar oo dhinacan ka jaban ayuu intaa ku juftaayo. intaa koobkaa bigayska ah hadduu caana u helaa badda caana boodho yar hadduu ku qaso oo ciribta ku dhufto isagaaba maad jooga. sidaasi siday u socotaba maalin kolkaa khamiisa oo ay beritooda kale jimco noqonayso, khamiista gelinka iskoolada gelinka hore ayaa break timeka hore waa lasoo fixisii jiray, ayaa goor galabo kolkaa 5:15 galabnimo ay saacaddu ku beegan tahay. gabalkuna kolkuu gabaabsi yahay oo cadceedu inay liiqa sii dhigaysa aada moodid, ayaa wuxuu arkay mucjiso aad ka yaabisay. maalintaa gelinkeygii hore roob ayaa da-ay. waa guyo waxaa lagu jiraa xilliga barwaaqada ah. dhijaamaha godan weli waxaa kasii galilcaynaya xareedii roobkii kolkaa saaka da-ay. geedaha waxaa isqabsaday dhaleen wada cagaaran iyo ubaxyo caynbacayna. dhijaamaha godan ee ay weli biyuhu ku sii jiraan waxaa ku washiiranaya shimbiro midabyo kala jaajaada oo aada moodaysid codadka iyo dhawaaqyada ay samaynayaan nacam misig nacam aada u macaan ritmiska ay bixinayaan. jawgu galabtaa uu degan yahay, neecow waxaa dhacasa saansaco udgoon. kolkuu goobtaa soo gaadhay ayaa magan waxaa xagga waqooyi riixaddii dabaysha ee socotay ay kaga soo qaaday cadar aada cadarada qaaliga oo udgoon badan. kolkuu xaggii jalleecayna waxaa isku beegan kolkaa gabadh iyo cadceedda oo liiq sii gelinaysa. cadceedka liiqa sii dhigtay fallaadhaheega casuusiga ayaa kolkaa waxay ku dhacayaan dhijaamahan ay biyuhu dee ay ku jiraan. halkaana waxaa ka samaysmay midab dahabiya. magan waa yaabay goortan iyo goobtan iyo galabtan waxaa gabadha dhigay. kolkaa jawga kolkaad sifaysid waa jawga aadkaa u quruxda badan
amba sinariga caynkaasiya imaginationka caynkaaya leh dooga waxaad moodaa inuu halkan ku leeyahay bahashii ciirdhuuqda la odhan jiray oo dabaysha ayaa sidaa geedahana dee waa flowers ayaa qabsaday oo baxyo cayn bacayna ismahaan waa gabadh aada u qurux badan waana mataanteeda kalena kama garatid dhulkaa goobta iyo goobta iyo bilcanta gabadheed markaad isku eegtid waxaad nacam ku sifayn kartaa iyo sorry waxaad ku sifayn kartaa heestii abwaanku lahaa casarkii cadceedo godka cidhifka geliyo ka sokeeyo caado amba laanta canabko hoobaan la ciirtiyo cagaarkoo iftiimo cilidaaqi wey waxa weeye waa jooga caynkaasiya magan yaab garay gabadhii xaggiisa u soo dhaqaaqday gabadhii waa ismahaan waa sanadkii sanadugsiyada la marayaa waa foontoogii waa labadii gabdhood ee walaalaha ahaa mid ahaan ee mataanaha ahaa waa ilmo xaaji moogi cajaa'ib waa yaabay goortan iyo goobtan iyo galabtan iyo kolkay u timid assalaamu calaykum la isdhaafsay magan yidhi walaal maxaa goortan cidladaa keligaa goobtan ku dhigay kolkaa wuxuu hadi goorde ku yaqaanay magan iyadii ayaanu gaadhi kolkaa maarshaandiisa beenisa lagu wado oo aan xitaa dhulba lugaynba kolkaa xitaa maanta gaadhigii xitaa soo qaadayay dee lama socdo magan walaal buu yidhi maxaa kulaas walaal buu yidhi maxaa goobtan iyo goortan cidladahaa ku keenay kulaasay tiri adiga ayaan ku socday gacaliya bay tiri waxaana ku siday fariin khaasa bay tiri kolkaa gacantan waxay ku sidataa warqad dahaaran oo infloob farshaxan aada u qurux badan lagu soo xardhay iyo qoraal waxaan leeyahay calligraphy waxa weeyaan waa qoraal farshaxan ah oo qaab qurux badan loo soo qoray ay dusheeda kolkaa ay kaga qoran tahay farshaxanka warqadda envelopekeyga ku sawiran waxaa ka mida wadne kolkaa dhiig habaya oo dhiiggii socday uu samaystay tog dhiiga oo rogmanaya oo toga agtiisa kolkaa waxaa ka baxay falaawir midabka casuusiga ah dhinacan kalena waxaa ku sawiran laba indhood oo ilmadii ka dhacaysay ay rogtay tog xareeda oo labadiisa dacal ubaxyo caddaan iyo midab casuusiya iyo midab hurdiya iskugu jira warqaddii bay usoo fiisay kolkaasi warqadan ayaan ku siiyey garay kolkaa magan inay warqadani dhambaal jeceyl tahay laakiin isagu ma aaminsana inuu yahay mid u qalma inay cidi jeclaan karto waayo duruufaha iyo waayaha ku xeeran ayaa mar kastaba siday doonaha u qaldanaadaane ayaa kolkaa isku qiimeeyey inuu yahay isagu ku aana cidiba jeclaanayni oo aanay dee cidiba jeclaan karin kolkaa waataan aan idhi danta ruuxay haysaa waayuhu dulleeyaan da-dii lama caweeyo dooda iyo sheekada farxadaha dareenka leh dadka lama wadaago doqon buu ka dhigan yahay hadday dunidu weyn tahay daawasho iyo qurux tahay kaymo doogu uu baxay webiyaal durduraya beero lagu dalxiisiya ay dooxyo badan tahay isaga way ka dadanto
sidii uu dambaab galay dayr keli u gaaro cidi aanay degan weli darxumuu ku nool yahay qof damiir la siiyo garashadu damqayso u diirnaxayo mooye dadku way la yaabaan ku digtaa miskiinka sorry warqaddii ayay u dhiibtay kolkaa waxay tidhi jawaabtana si degan uga soo fikir oo jawaab deg degana ayaan kaa sugayaa way iska socotay magan waa ka yidhi walaal aan ku hooyo waxa weeye waa dhul cabsiya gobolkuna wuu dhacay caynkan okay bay tiri oo dhaweeye haddana dib usoo noqay wuu fikirayaa intaa magan miyay kugu ciyaaraysaa buu leeyahay ma yaasmiin xaaji mooge ma dhici karta bi that's impossible ayaa adiga oo magan oo dee xaalka dee aada marasa ay og tahay wuu yaaban yahay kolkaa way ka degi laadahay kolkaa waa tii hore la yidhi bi waa adduunyay maxaad geesi ciishay oo gabal baas u dimisayd oo adduunyadani waa iska cajiib laakiin waxa la yidhi love is plan jacaylku wuu indhalaayahay uma muuqdo waxaa isagu ka fikiraya adduunyana uma muuqato ee nafta ay jamatay ayay hadi goor dee rabtaa inay kolkaa wehelo wadaagto runaantii magan halkii ayuu kolkaa ka soo dhaqaaqay su-aalo badan uu fikiraya isagoo fikiraya oo isku buuqsan ayuu buulkii yaraa ee aabihii kolkaa ula deganaa ayuu daahii iska rogay kolkaa aabihii iyo dab saddexdii dhadhaar dabkii afuufo dabkii kulaalayo kolkaa waxooga cashaana dheriga dabka saaray oo kolkaa gudihii ku walaaqaya ayuu u galay aabihii baa kolkuu wejigii inankiisa eegay ayuu arkay inankiisa oo dhibaataysan oo daalan oo maqan kolkaas yidhi aabo maxaa kugu dhacay maanta aada buu uga dhacay aabo maxaa kugu dhacay wuxuu ugu jawaabay magan aabo su-aal chemistry iyo physics iyo biology xisaabtuna ay la socoto maadooyinka lagu qaato dugsiga ayaan xalkoogii ka fikirayo nagu adkaaday odayga kolku intaa maqlay wuu ku qancay casheeyeen hurdadii loo diyaar garow dhinaca saantii yaray dhulka saar magan hurdaba uma imanayso kolkaa waagii kolba dhinac buu isku rogaa kolba dhinac buu iska rogaa kolba dhinac buu isku rogaa kolba dhinac buu isku rogaa kolba buu isku rogaa waagiiba kolkaa dee soo iftiimaya waa inu diyaar garoobaa oo kolkaa u dheelmadaa halkaasay noogu jeegaysaa bal jawaabta iyo waagu kolkuu iftiimo qeybtani waa qeybtii koowaad waana sheekadii adigu idhaaftaye bale iyo tika dhowro qaybo badan bay leedahay waad la socon doontaa
عايزة